magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo ay ku mideysan yihiin maamulada Puntland, Jubbaland, midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta Somaliland. isbahaysigan ayaa loogu magac daray madasha badbaado qaran waxaana gudoomiye loogu doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare. sidoo kale golahan ayaa waxaa ka soo dhex muuqday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo xubno kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta. ujeedka ugu weyn ee loo aas-aasay madashan ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay qabashada doorasho xalaal ah iyo in ay ka hortagaan in dalka uu ka dhaco fashil siyaasadeed. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in arrintan ay ku saxan yihiin mas'uuliyiinta madashan ku midowday, isaga oo na tilmaamay in haatan dalka uu yeeshay 2 gole. waxa uuna ugu baaqay inay wada hadlaan labada dhinac si dalka doorasho ay uga dhacdo. aniga waxay la tahay waa ku saxsan yihiin laba barnaamij runtii anigu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa weeye in Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyihii aqalka sare uu arrintan isagoo qoladan uu gudoomiye u yahay sababtoo waxaan leeyahay waana mudan yahay waan lagu tacdiyey maaragtay awoodihiisii iyo meeqaabkiisii intaba. marka iyagu waxa u samaystay dayada garnaweysaad weeye waxay imaanaysa marka hala wada hadlo. hadda 2 tiim baa abuurmay oo kala duwan oo iyo 2 kulladood baa abuuratay sida muuqata. marka dadaalada waxa weeye kulladuhu ay isu yimaadaan anay shiyaan arrintan uu waxa u bixiyaan doorashada. dhinaca kale dood adag ayaa ka taagan in Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare uu ka mid noqdo isbahaysi siyaasadeed isaga oo ka tirsan dawladda kuna biiro mucaaradka, iyo sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubbaland oo hoos taga dawladda federaalka oo iyaguna ku jira madashan. haddaba dastuurka Soomaaliya muxuu ka qabaa arrintan? waa kan abuukaati Cabdiraxmaan Daahir Sulub. gudoomiyaha kuma biiri karo madashaas, kuma biiri karo sababtoo ah dastuurkan qodobka 65aad wuxuu cadeynayaa in maaragtay gudoomiyaha marka gudoominimada loo doortay iyo ku-xigeenadiisa xil kastoo hore ay u haayeen waa in ay maaragtay ka tanaasulaan. sida saxdana waxay ahayd in uu mar walba dhexdhexaad ka noqdo markuu xilkiisa gudanayo. markaasoo maanta oo mudana maaragtay ka tirsan dawladdii maamul ah mas-uul sare ah in maaragtay madal kale oo markaas madaxda hore uu maaragtay la soo diiro xaq dastuuri ma laha. waa inuu marka hore xilka hadda u hayo maadaama markiisa hore hadda muddo hadda aanan dawladda hadda faraaq dastuuri ay ku jirto waxyaabo badan oo mugdi ku jiro marka kuma biiri karo. qodobkaasaa u diidayo sida hadda ku xusan isla qodobkan ayagana sidoo kale hadda dastuuro kale leeyihiin. waayo qodobka hadda 20aad iyo 16aad wuxuu cadeynaa in uu qof walba uu xaq u leeyahay inuu ku biiri karo xisbiyo siyaasadeed. sidoo kale qodobka 22aad asna sidaasoo kale wuu cadeynayaa. marka dadkaas laga hadlaayo waa dad kale gooni ah oo markaa siyaasadda markaas banaanka ka ah. marka ayagana sidoo kale kuma biiri karaan. waa dareemaysaa golahan hadeertaan lagu dhawaaqa rag culusaa ku jiro, sidaada gudoomiyaha baarlamaanka ku jiro, aqalka sare rag badana uga jiro. marka waxay uga duwan yihiin golahan madaxdii hore oo dalka soo xukuntay oo sida Sheekh Shariif iyo rag kale oo iyo mucaaradin kale ku jirta. marka wuxuu uga duwan yahay leenahay xagga xubnaha marka laga fiiriyo kala duwan yihiin. xubnayaasha hadda golahan ka tirsan waxaa ku jira golaha siyaasadda Somaliland, midowga musharaxiinta, waxaa kaloo ku jira madaxda aragtida Puntland iyo Jubbaland, halka musharaxiinta hadda kuwii hore loogu dhawaaqana aysan ku jirin ragga hadda aan xusnay. su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa ah sida ugu fudud ay dhinacyadan ay ugu heshiin karaan arrimaha doorashada. mar kale Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. arrinta xalkeedu wuxuu ku jiraa sida mas'uuliyadda loo kala leeyahay loo qaato. mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay madaxweynaha federaalka ay saaran tahay. isaga ayaa rabaa inuu tanaasul badan sameeyo, isaga ayaa rabaa inuu dagaal badan soo geeyo, isaga ayaa rabaa inuu tantaga dadka suuliyo, isaga ayaa laga rabaa kalsooni inuu abuuro, isaga ayaa laga rabaa in uusan sida hadda uu macaanka gu yahay oo xugu dhagan yahay inuu ka fuqaan la rabaa. laka kalena waxaa rabaa taa hadduu isagu la yimaado tanaasulka iyo danaca qolalka waxaa rabaa waqtigoodu inay xarigga dabciyaan oo ay heshiis inay diyaar yihiin muujiyaan oo waxaan la sii dheerayn. sababtoo ah haddii ayagu diidaan oo xarigga dhaqooda ka dabci waayaan dee isagu maa meesha fadhiya Soomaaliya dila Soomaaliya isaga sii joogaya Soomaaliya. laakiin anigu meesha hal dowlad baan u arkaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa hal shakhsi weeye, waa hal xafiis bay wadaagaan ma garatay. dabcan mas'uuliyad gaar u leeyahay ra'iisul wasaaruhu xil gaar uu qaato madaxweynihiisa waxyaaba qaarkood inuu ku diido hadduusan ku diri karin ku qanciyo ayaa laga rabay. laakiin hadduu inta awoodi waayo ra'iisul wasaaruhu uu muuqdo inta awoodin hadduu yahay dee
qasab waxa weeye in loo dhiilgareeyo meesha ninka xukuma waa ninka madaxweynaha farmaajo weeye in isaga lala hadlo oo loo dhiilgareeyo oo isaga ilaa ninka wax diidan waa roobna wax diidan anigu ilama aha ma garan qoladan haddii horta option kale ay leeyihiin ma jirto sida ii muuqata dee optionka halka kale waa dagaalada xal ma aha hadda saacadda inta ciidan la soo urursado iyo shiddo iyo dagaal dalku ma awoodo mana qaadi karo mas-uuliyadna ma aha wax saxana ma aha golahan oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin miisaan culus leh ayaa aasaaskooda waxa uu ku soo aaday xilli dalka uu ka jiro jahawareer siyaasadeed isla markaana la isku fahmi laayahay nidaamka doorashada ilaa hadda laguma guulaysanin in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay ka heshiyaan hoggaanka doorashada iyada oo weli uu khilaaf ka taagan yahay qodobada qaarkood arrintan ayaa sidoo kale imaanaysa iyada oo beesha caalamka ay dadaal ugu jirto in miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada isku haya doorashada Soomaaliya